بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داوديال كسو دوادا حقتا مانتا la xiriirta wararkii ugu dambeeyay ee dunida iyo kuwa Soomaaliya. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa soo saaray go'aan aan farxad gelin doonin dad badan oo dunida daafaheeda ku kala nool. Kim Jong-un ayaa laga deyrinayaa xaaladiisa caafimaad kadib markii qalliin dhinaca wadnaha ah lagu sameeyay. maamulka galmudug ee Soomaaliyana waxa uu ku guuleystay inuu xalliyo dagaal beeleed in muddo taagnaa. ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliya howlgallo qorsheysan ayay ka sameeyeen deegaanada gobolka Shabeelle Hoose gaar ahaan Janaale. beesha caalamku waxay sheegtay in taageerada dhinaca dhaqaalaha ay u weecinayso ka hortagga COVID-19. madaxweyne Deni war uu soo saaray oo ka careysiyay reer Hirshabeelle iyo jawaabo kala duwan oo kulkulul oo soo baxaya. maamulka gobolka Banaadir oo ku guuleystay inuu Muqdisho ku buufiyo sun dilaysa cudurka coronavirus. Turkiga markii ugu horeysay waxa uu ka hadlay dhexdhexaadinta madaxweyne Farmaajo iyo Muuse Biixi Abi Axmed uu wado. ismaqal hagaagsan daawadayaal mar kale. haddii aad nagu cusub tahay channelkan subscribe saar, sidoo kale aragtidaada qaybta hoose noogu reeb, like-na ha hilmaamin. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa fariin uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka waxa uu ku sheegay in uu saxiixi doono amar madaxweyne oo si ku meel gaar ah loogu hakinayo soo galootiga ka yimaada wadanka Mareykanka coronavirus awgeed. fariintan uu soo dhigay xilli dambe oo xalay ah ayaa waxa uu ku sheegay in go'aankaasi uu gaaray kadib weer ugu yeeray inuu soo qaaday cadawga aan la arkayn, taasi oo ah magac ugu yeero xanuunka coronavirus iyo baahida loo qabo in la dhowro shaqooyinka ay hayaan muwaadiniinta Mareykanka ah. wax faahfaahin ah inta dheer kuma uusan darin fariintiisa uu Trump soo dhigay bartiisa Twitter-ka. hase yeeshee ma ay cadda waxa uu madaxweynuhu dhab ahaantii ula jeeday iyo in ay suuragali doonto inuu qaato tallaabo aan hore loo qaadin oo tan lamid ah ama aan la arag. Mareykanka ayaa waxa uu diiwaan geliyay 782,159 xaaladood oo cudurka COVID-19 ah, halka dhimashadu ay marayso 41,816 qof. dadka dhaleeceeya maamulka Trump waxay sheegeen in madaxweynuhu uu cudurkan safmarka u adeegsanayo howlo uu burburinayo muhaajiriinta soo galootiga ah ee dalkaasi soo damaacinaya. General Abdi Jaamac Abdulle Xabeeb oo ka tirsan saraakiisha amniga galmudug iyo mas'uuliyiin ka socday maamulkaasi ayaa ku guuleystay xalinta colaad ka jirtay deegaanada gobolka Mudug. deegaanada ka baxsan Daalaca Dheere iyo deegaano kale oo muddooyinkii dambe lagu dagaalamayay ayaa lagu waramayaa in xaaladooda la qaboojiyay. saraakiisha ayaa sheegay in heshiis kala dhex dhigeen beelaha colaadu ay dhex martay, waxayna rajeeyeen in ay dib u soo laaban doonaan deegaanadaasi dadkii ka barakacay. joogitaanka colaadaha u dhaxeeya dadka xoolo dhaqatada ah waa dadaal ay waayeen dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedka si loo hakiyo. dhowr jeer oo hore ayaana halkan lagu dagaalamay, waxaana ka dhashay khasaare kala duwan oo isugu jira dhimasho dhaawac oo soo kala gaaray labada maleeshiya ee halka ku dagaalantay. Turkiga waxa uu markii ugu horeysay ka hadlay dhexdhexaadinta uu wasaaraha Itoobiya ka wado maamulka Somaliland iyo dowladda dhexe. dowladda Turkiga ayaa markii ugu horeysay ka hadashay dadaalada lagu rabo in dib loogu furo wada hadallada muddada dheer hakadka ku jira ee Soomaaliya iyo Somaliland. Mehmed Yilmaz, safiirka Turkiga ee Soomaaliya, ayaa si weyn u soo dhaweeyay kulankii ay dhawaan Addis Ababa ku yeesheen madaxweyne Farmaajo iyo Muuse Biixi Cabdi, kaasi oo uu garwadeen ka ahaa ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abi Axmed isagoon lahaa qorshaha kulankaasi. safiirka ayaa kulankaasi ku tilmaamay horumar muhiim ah oo laga gaaray wadahadallada Soomaaliya iyo Somaliland, midaasi oo dhalinaysa isku soo dhawaansho labada dhinac ah gaar ahaan madaxda dalka. Mehmed Yilmaz ayaa sidoo kale bogaadiyay raaligelin uu reer Somaliland siiyay madaxweyne Farmaajo, taasi oo ku aadan xasuuqii dowladii kacaanku ay ka geystay deegaanada maamulka Somaliland sida uu yiri. Yilmaz ayaa ku dhawaajiyay in dowladda Turkigu ay Soomaaliya u aragto mid la safan dowladda federaalka ee Soomaaliya, isla markaana dhexdhexaad ayna ka ahayn wadahadallada u dhaxeeya labada dhinac.
safiirka ayaa waxaa kale uu soo dhaweeyay cid kasta oo dabada ka riixaysa furitaanka wadahadaladaasi iyo dadaalada dib loogu furayo midaasi oo ay ka qayb tahay qorshayaasha uu wada Abiy Ahmed. wuxuuna intaa ku daray kaliya waxay u baahan tahay in la isku dubarido oo loo dhameystiro waayo wadahadalka Somaliland iyo Soomaaliya waxa uu leeyahay dhinacyo kala duwan sida siyaasadda iyo warbaahinta oo kale. waxaan mar kale leeyahay dhinacyada kala duwan ha heshiiyaan. dadaalada lagu rabo inay dib ugu furmaan wadahadalada Soomaaliya iyo Somaliland ayaa muddooyinkii sii kordhayay iyadoo ay soo ifbaxayeen qorshayaal uu gadaal ka riixayo ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed oo damacsan in xal laga gaaro arrinkan muddo dheer soo jiitamaysay. waxaana kol hore madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu magaalada Addis Ababa kula kulmay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi kulan aan sidaasi loo sii ogeyn. ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Xasan Cali Kheyre, safiirada dalalka saaxiibka ah ee Soomaaliya iyo wakiilada hay'adaha caalamiga ah ee dalkaas ku sugan oo yeeshay kulan dhanka mareegta internetka ah ayaa ka wada hadlay xaaladda dalka Soomaaliya marayo, gaar ahaan arrimaha la tacaalidda xanuunka COVID-19. qoraal ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha ayaa lagu sheegay in mudane Xasan Cali Kheyre uu mas'uuliyiinta kulanka qaybta ka ahaa ku wargeliyay in dowladda Soomaaliya ay doonayso in dhammaan barnaamijyadii qorsheysnaa ee dowladda lagu caawinayay loo leexiyo wax ka qabashada cudurka halista badan ee COVID-19 iyo caawinta dadka nugul ee saameyntu ay ku yeesheen tillaabooyinka lagu xakameeyay cudurka. Xasan Cali Kheyre ayaa safiirada u sheegay in la joogo xilligii caawinta baahida ugu badan loo qabay ayna muhiim tahay sida uu dhaqsiyaha badan in dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo kuwa dalka ka jira looga dhiso min hal isbitaal oo awood u leh la tacaalidda bukaanka uu haleelo cudurkan. safiirada iyo wakiilada hay'adaha caalamiga ah ee qadka mareegta internetka ra'iisul wasaaraha kula hadlay iyo kuwa dowladda ayaa waxa ay aad u soo dhaweeyeen go'aankaasi. waxaana ra'iisul wasaare Xasan Cali Kheyre uu kula dardaarmay in arrinkan sida ugu dhaqsiyaha badan loo dardargeliyo. qaar ka mid ah warbaahinta Mareykanka oo soo xiganaysa saraakiil dowladeed ayaa sheegaya in hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un uu ku sugan yahay xaalad halis ah kadib markii qalliin looga sameeyay wadnaha. telefishinka CNN ayaa sargaal sare oo Mareykan ah oo arrimahan xog ogaal u ah ka soo xigtay in Washington ay isha ku hayso xog sirdoon oo sheegaysa in Kim Jong Un xaaladiisa caafimaad iminka ay aad u liidato. warbaahinta Bloomberg ayaa iyana ka soo xigatay sargaal aan la magacaabin in xaaladda Kim ay ka dartay markii qalliin lagu sameeyay. Kim ayaa la sheegay inuu seegay dabaaldega sanad guuradii dhalashada awowgii oo ku beegnayd 15 Abriil, taasi oo dhalisay xan ku saabsan xaaladiisa caafimaad. waxaana kulan dowladeed lagu arkay 4 maalin ka hor xilligaasi. sargaal kale oo la hadlay CNA ayaa sheegay in ay jiraan walaacyo ku saabsan xaaladda caafimaad ee Kim balse adag tahay in la qiimeeyo heerka ay la eg tahay. wargeys online ah oo lagu magacaabo Daily NK oo fadhigiisu yahay Kuuriyada Koonfureed ayna leeyihiin mucaaradka Pyongyang ayaa wariyay in Kim lagu sameeyay qalliin wadnaha ah 12 Abriil. Kim ayaa qalliinka wadnaha ah looga sameeyay sabab la xiriira sigaar cabis xad dhaaf ah, cayil iyo shaqada oo ka tanbadatay, sida uu wariyay wargeyska Daily NK kaasi oo intaasi ku daray in lagu daaweynayo filo ku taala Haeganzan.